qaybta saddexaad ee sheekadii la magac baxday sirtii jaceylkaygii ayaa waxay inoo joogtay. Allah, waa maxay waxaan arkayo? Ma indhahayga baa mise waa dhab? qaybta afaraase waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Maya, dhab ma ahan, mana noqon karaan. wixii qalbigayga ku jiray intii aanan sheegin ka hor ayay arinku cakiran tahay. Allah, maxaa maalinkii wax waliba u sheegan waayay? xishood iyo qadarin baa xaalkaani baday. deeqsan awood way u yeelan weeday inay sideedii hore sii ahaato, waayo qalbigeeda ayaa dhaawac gaaray. waalid iyo walaal midna war uma hayso, oo waxa ay noqotay maqana jooge, fikir iyo xanuun jecel meel la jiifto. firfircoonidii tirada badneed faraha ayay ka baxday. in badan oo ay deeq la hadashana war waa uu ka maqli waayay, isagoona cudurdaar uga dhigay inuu qaatay ducada waalidka, walow uu u sheegay inuu weli jecel yahay. muddo dheer kadibna deeqsan hadalladeedii oo idil waxa ay noqdeen ima gala jacayl, haa anigu ima gala jacayl, ima gala jacayl, iyo in ay ismaaweeliso iyadoo qalbiga dhaawac ka ah in ay dadka qaar oo aan la socon qisadeeda jacayl ku maaweeliso hadalladaasi, isla markaana ay qariso qisadii jacayl ee soo martay. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan saaxiibada qaaliga ee ku xiran Hargal TV ee la socday sheekadii la magac baxday sirtii jaceylkaygii, iyo weliba Sooda Xaaji Axmed oo sheekadani gacan weyn ka geysatay. intaan sheekadani mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.